רן דנקר, יובל דיין, תודה רבה. Thank you very much. חוזרת בתשובה. Yuval Dianis oo ah fanaanad u dhalatay Israa'iil caana ku ah heesaha hip-hopka iyo taasiga ayaa arrin la yaab leh ku soo bandhigtay masrax ku yaala magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil. Fanaanada ayaa iska diiday inay gacan qaado madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo booqasho ku jooga Bariga Dhexe, gaar ahaan booqashadiisii koowaad ee Israa'iil. Madaxweynaha ayaa damcay inuu mahad celiyo kadib Yuval iyo fanaan kale oo ka heesayay masraxa. kadibna madaxweynaha Joe Biden ayaa isku dayay inuu gacan qaado fanaaniinta. hase yeeshee arrinta la yaab kale ayaa ahayd in Yuval iska diiday gacanqaadka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kadib markii ay gacanta islaanta ka qaadi diiday gacantana gadaal u laabatay iyadoo ku tiri mahadsanid madaxweyne. Madaxweynaha ayaa inta dhoolla iska soo laabtay kadib markii islaanta laga qaadi diiday. Yuval ayaa arrinta ku sababeeyay inay tahay arrin la xiriirta diinteeda, maadaama ay sheegtay isagoo ogolaan diinta Yuhuudda in dumarku ay ragga salaamaan islaanta ka qaadaan ama ay gacan qaadaan. Arrintan ayaa dunida aad uga yaabiday, waxaana warbaahinta reer galbeedka ku tilmaantay gabar ku adag diinteeda, sidoo kalena ixtiraam u hayda diinteeda ayna ku faanayso. Warbaahinta reer galbeedka ayaa aad ugu ammaanay gabadha Yuval inay tahay gabar diinteeda ku adag. laakiin arrimaha la yaab kale ayaa ah in dadka muslimka ah oo diinteena xaqa ah ayna faraysan in dumarku aysan gacan qaadin ragga, ay dumarkeena ku faanaan, dumarka muslimka ku faanaan ragga gacan qaadaan, ayadoo warbaahinta reer galbeedkan u arka inay tahay mid mushkilad iyo dibdhac ku ah ummadda islaamka ah inaysan ragga gacan qaadayn. bal ka waran haddii qof dumar ay diidi lahayd inay madaxweynaha Mareykanka gacan qaado, maxay warbaahintu ku tilmaami lahayd? takhalluf dib u dhac madaxweynaha Salaan. runtii waa arrin aad loola yaabo in dumarkeena muslimiinta ahaa ay ku faanayaan inay ragga gacan qaadaan ajaanibta ka ah, halka Yuhuuddiina iska diidayaan inay gacan qaadaan ragga ajaanibta ka ah oo diintooda ay ka xarimtay. daawada waa ku mahadsan tahay daawashada warbixintan. fadlan nala wadaag ra'yigaaga ku saabsan arrinta ay sameeyay Yuval Dianis. mahadsanid, la wadaag muuqaalka asxaabtaada.